بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halka ka salaamayaa dhammaan khubarada iyo dadka sharafta leh macnaha iyo walaalaha hisda oo ahmiyad buuxda siiyay deegaanka iyo qayladhaanta daafaha adduunka ka yeeraysa gaar ahaan dalkeena Soomaaliya. aniga waxaan shacaar ka dhigtay ayad quraan oo dhahayso alladii jacala lakum min ashjari al-akhdari naara fa idha antum minhu tuqidun. صدق الله العظيم. runtii waxa weeye xaalufinta dhirta waxa weeye baabi'inta nolosha bani'aadamka iyo noolaha oo dhan. dadka waxay loo haystaa inay dadkani faa'iidayaan ama ku noolaanayaan. dad baa u arka inay wanaagsan tahay dadkaasi inay noloshooda badbaadiyaan oo dhirta jaraan si ay u noolaadaan, laakiin ma garanayaan baaxadda ay la eg tahay raacaysa oo aan ka soo haraynin. waxa weeye waa billions. waxaa ka mid ah ilma aragtada dhulka ku jirto oo ilaahay uu leeyahay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa. geedkan markuu baxo hoostiisa waxaa ku nool khalaa'iq badan, waxaa ku nool shimbiro, waxaa ku nool xayawaano. halkii geed waxaa ku xiran intaas oo milyan oo noole ah ayaa ku xiran. asagina waxa weye noolihii ayuu ka mid yahay. waa warshadda ugu yar adduunka, uguna mucjizada badan wax soo saarkeeda iyo samaynteeda. caleenta geedka caleentiisa waa warshadda adduunka ugu yar oo ugu saamaynta badan noolaha adduunka ku nool. waxaa jira waxyaabo sababa. waxa ugu muhiimsan waxyaabaha sababa xaalufinta dhirta waxa weeye beeraha oo u socdo. waxa weeye beeraha waa vertical iyo horizontal. casrigeena maanta waxaa la rabaa vertical in la beerto halkii hektaar 120 tan in laga soo saaro. waxaa la yidhaha vertical agricultural vertical production. haddii ay noqoto horizontal 200 oo hektaarkeena laga soo goynayo 1 tan, waxa weeye waxa keena xaalufinta dhirta iyo musiibooyinka isdaba jooga ee bani aadanka la kulmo. sidoo kale waxa weeye xayawaanadii oo ka bata macna meeshii dhul aan ku filnayn oo xayawaano badan isugu yimaadaan oo la daaqsado. مثلا waxaan aragnaa dadka reer guraaga ah roob yar markuu daa halkaas la isugu yimaadaa. mararka qaar waxaad arkaysaa cawskii oo cagta lagu dilay asoon la cunin, neefna asuu ka faa'iideysanin, lagu kor socday oo halaabay oo ku kaadiyeen xoolaha. marka overgrazing waxa loo yaqaano weeye. sidoo kale waxaa jiro jaritaanka sharci darrada ah ee dhirta la jaro. dhirta in la jaro oo la manfacsado waa sax, maxaa yeelay bani aadanka noloshiisa oo dhan ku dhisan, laakiin xadday leedahay, nidaam ay leedahay, sharci ogolaanayaa jiro oo xadidayo oo nidaaminayo. sidoo kale magaalooyinkii iyo ilbaxnimooyinkii meelihii dadkii magaalada reer magaalka ahaa ay dhisanayeen dhulkii hadduu fido oo u ballaadho, waxaa sidoo kale meeshii ka baxayo dhirtii dabiiciga ahayd oo ku taallay waa in la jaro si guryo looga dhiso. sidaasoo kale dhulkii inuu nabaad guur uu ku dhaco oo dabiici ah kadib markii roobkii uu waayey, kadib markii uu daryeel waayey, kadib markii ay dhinteen mirihii
geedihii aysan miro dhalin sanadkii dambana ay qaarkood qallaleen waxaa imaanaya waxa la yiraahdo desertification land sidoo kale macdantii ayadana dhibaatay u keenaysaa oo meeshii macdan lagu arko dahab markii la rabo geed lama danaynayo nin dahab u jeedo geed ma qiimeynayo waxaa jira iyadana oo kaalin ka qaato dabka ka kaca dhirta waxay leedahay in la daneeyo xilliyada roobka ah in laga jaro geedaha isxooqa geedo badan waxaa jira saa hadday dabaysha markay dabayl kacdo way saa isu xogaan markiiba dab dhalinaya geedahaas geedoo dhan wuu leeyahay laakiin way kala daran yihiin kuwa wax yar haddii saa isu lisaan markiiba uu dab ka kacaya ayaa jiro geedahaas waa laga dhex saaraa oo dad aqoon u leh oo ka bixiya ayaa jiro midda kale waxaa loo sameeyaa lacalla hadduu dab kaco oo yacni 100 hektaar ay gubato 100 hektaar oo kale inaysan u gudbin waxaa la sameeyaa waa la kala fogeeyaa oo gaab ayaa loo sameeyaa ama waddo weyn oo ballaaran ayaa loo sameeyaa oo dabdamiska iyo dadka gurmadka ah ay mari karaan sidaas oo kale waxaa jiro kartoonni iyo laga sameeyo warqado dhirta la jaro ujeedadeedana ay tahay in waraaqo laga soo saaro fara badan warshadaha qaarkood ama kartoonna laga soo saaro مثلا موسكا beeralayda mooska oo kale markay rabaan inay karton sameeyaan geedaha eforbiyada oo kale ayay jaraan markaas waxay u rogaan karton mooskaas lagu qaado lagu dhoofiyo sidoo kale dadkii hadduu bato tuuladan waxaa degnaa 100 qoys hadday 1000 qoys gaaraan waxa way waa ballaaranaysaa keyntii ku wareegsaneedna meesha waa laga saarayaa halkan waxaa way ficilkii bani aadanka oo samaynayo muuqaalkiisa oo waxyaabahaas uu ka mid yahay geedkii oo dhulka la dhigay oo la sii yaryareynayo wakaa geedkii weynaa iyo kuwii yaryaraa oo la gumuday horteenna waxa ka muuqda hadda ruux walba waa dareemi karaa xanuunka ay leedahay geedkan jiridiisa ay noo muuqato waxa weeye 6 qarni 7 qarni ilaa 10 qarni ayuu soo noolaanayo soo kacayay muuqaalkan hadda aan aragno walaalayaal imise sano ayuu ku soo noqon karaa oo aan sideedii ku soo celin karnaa haddii la isugu geeyo bani aadan oo dhan uu isugu yimaado insha Allah 4 minute baad ku hadhay Rashid adoo raali waa sidaas loo yaryareeyay loo faliiray markii dambana inta la gubay baa sidaas iyadoo ah dhuxushii ayaa la jarayaa taa waxay keenaysaa marka oo ka dhalanaya dhirtii in roobabkii iman jiray ee dhirtaasi ay soo jiidan jirtay inay yaraadaan oo meesha ka baxaan oo qaarkeed dhimato oo dabaylihii isbedelaan oo cimiladii isbedesho oo heerkulkii uu kor u kaco oo xoolihii iyo noolihii kale ku noolaa dhirtii la jaray macnaha ama ay noolaan waayaan xilliyadaas waxaa jiro dadkii xitaa beerihii markay roob waayaan xilliyada deyrta iyo guga way kala daran yihiin deyrta waxaa lagu qiyaasaa inta badan waxaa la fishaa roob la-aan ama roob yari dalkeena Soomaaliya meelo badan oo kamid ah marka waxa ay sababaysaa marka u dambeyso in la barakaco markay bilaawato xoolihii inay dhintaan dadkiina xoolaha ku xirnaana marka inay ayagana macluul ay la soo gudboonaato oo ay aadaan nolol raadsadaan meel u dhaanto ay soo barakacaan roobka marka sidaas ayay u kala gedisan yihiin sidii uu sheegay walaalkeen professor Cabsalaan aniga roobaa da'ayay aad umaan maqlin agteeda biyo badana ku daadanaya hadday dhawaaqa aad umaan maqlaynin marka roobka sidan uu yahay dhinaca waqooyiga wuu fiican yahay
dhinaca koonfurtana wuu u badan yahay iyo dhinaca Jubbaland sidaa markaad fiiriso dhirtana waxaa weeye dhir waxaa jirta dabiici ah oo native ah oo waddanka asal ku ah waxayna u badan yihiin dhinacaas waqooyiga iyo bariga ayay u badan yihiin laakiin dhirta waaweyn oo forestiga waxay u badan tahay dhinaca koonfurta marka waxaa la moodaa geedaha ugu badan oo asalka Soomaalida ay u leedahay inay ku yaalaan dhinaca koonfurta iyo kaymaha badan inay ku dhex yaalaan laakiin ma ah way ka gedisan tahay midaas dhulka 12% Soomaalida waa dhul kaymeed weeye waana waxay u dhaxaysaa dhul kaymeedkaas 10 oo nooradka ilaa 49 geesti ah intaas ayay dhirtu ugu badan tahay sidaas oo kale geedaha la yiraahdo basweelada Soomaalida ayaa gaar u lahayd awal laakiin hadda waa la sheegtay waayadan dambe oo wadano badan oo dawladaha Carabta iyo Ethiopia iyo badda cas intaba way la sheegteen laakiin awal Soomaali ayaa u ahayd gaar nin Jarmal ah ayaa cilmi baaris ka diyaariyay insha Allah Dr. Abdirashiid waa soo hobby in hadda talaynta qaybtada ugu dambaysa halkan ayaa bidishay ugu qaybsan yahay dhirteena ay u qaybsan tahay oo ugu baahsan tahay waddanka oo ah coastal desertigaas inuu yahay qaybtana geedgaab uu yahay bushlandka rivereenkana labada webi intuu dhaxaysana uu dhulka dhulgeedeed uu yahay dhulkeena soo kaymahaas leh oo alwaax dheer laga heli karo ayaa waxaa laga soo dhoofiyaa 2 mitir alwaax dhan baa waxaa laga keenaa Brazil iyo Chile oo dekedeena ka buuxa oo la keenaa dhirtii sidaas u hoobatay 2008 daraasad ay sameeyeen World Bankiga uu qoray 2008 dhinacaas uu ahaa 2018 heerkaas ay gaareen inshallah Abdirashiid the last sentence maybe waxyar raaliga ah waxaa rabay waxa ugu muhiimsan oo ah impactiga uu keeno ama dhibaatooyinka uu keeno waxaa kamid ah مثلا abaaro isdaba joog ah biyo baxo faqri iyo abaaro dadkii u yimaado sidoo kale caafimaad darre ayaa ka dhacda food security dhibaato ayaa soo wajahday iyo nutritionkii intaba ruuxii iga horeeyay ayaa ka hadlay hadayto sidaas oo kale dhibaatada uu leeyahay dhaqaale ahaan ayuu hoos u dhigayaa marka recommendation ayaan sameynay oo halkan waxaa sheegayna mutaxadidkii ninkii iga horeeyay oo ka hadlayay oo regulation iyo sharci in la helo oo lagu ilaaliyo dadkan reer miyiga ana wacyigelin fiican la siiyo laakiin isku soo duubo muhiim waxa weeye inaan dib u noqono oo hoos laga soo bilaabo primary schoolka dugsiga hoose dhexe lagu soo barto manfaacada ay leedahay dhirta dadka kale oo reer miyiga ana informal education in la siiyo oo wacyigelin iyo filimo loo shido sidaas ayaan filayaa in looga hortagi karo marka geedo waxaa jira oo asal annaga aan leenahay oo dabar go'ayo sidii uu sheegay geedahaas asalka noo ah inaa hadda mashaariic loo sameeyo oo la soo celiyo dalkii sidaas habboon waa mahadsantihiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi